SBA ayaa ku dhawaaqday in ay cafis u fidinayso barnaamijkii PP Paycheck Protection Program Loan Forgiveness ka ahaa barnaamijkan oo sheegaya $150,000 wixii ka yar qaato inay cafis degdeg ah u fidinayaan haddii shuruudihii laga rabay ay buuxiyaan qof walba oo Mareykan wuxuu qaadan doonaa $2,000 oo joogta ilaa caabuqa coronavirus ka dhamaado iyo sidoo kale qodobada inaha waxaa kamid ah in barnaamijkii $1 trillion infrastructure bill-kii ee la filayo asbuucan inay aqalka sare ansixiyaan. Salaamu calaykum akhyaarta meel walba joogtaan waa Maxamed Faarax inta u gudagulin qodobada saddexda qodob aan idin hayo fadlan waxaan idin ka codsanayaa in aad videogan aad la wadaagtaan saaxiibada asxaabtaada ehelkaaga dhammaan channelkayga YouTube Maxamed Faaraxna aad subscribe gareysay saaxiib aad la noqotid waxaan maanta idin hayaa saddex qodob oo aad muhiim ah qodobka koowaad ma laga yaabaa fourth stimulus check in ay helaan dadweynaha Mareykanka arrinkan ayaa wuxuu ka bilaabmay fikro dad ku qoray petition subiye change.org ayaa waxay u direen in ka badan 20 milyan 26 milyan qof ayaa barnaamijkan petitionkan buuxiyay ayagoo sheegay in caabuqa coronavirus uu halis yahay dhaqaalihii Mareykanna uu shaqooyin badan tirtiray unemployment-ga ee 14 milyan oo qof shaqaalaan yihiin iyo sidoo kale dad badan ee la tacaaleen caabuqa guryaha iska bixin karin homeless noqdeen sidaas daraadeed waxay sheegeen dadka online ku buuxiyay petitionka in loo baahan yahay bil walba lacag joogta in la siiyo waxay qiyaaseen in $2,000 ay ku filan tahay على قف وأدلتي أمريكنا إن $2,000 للسيو إلا عابق coronavirus وكذا معنا برنامج كان أيضا كان وحي أدري البيتيشن كان سياسيين تمريكان كاكو أقل كسرة يكو أقل قهوسة لباتن يكو أقل كسرة أيها هذا برنامج كلا دعدي وحي وبرني ساندرز كميديا إليزابيث وورن كميديا أيها وراء أدري مدحوين أمريكان أيها هو الشيء الشعب وينها أمريكان واللي تعالى عابق coronavirus dhaqaale darro xunna ay hayso loona baahan yahay in bil walba joogtaan bishaar la siiyo bil walba joogtaan lacag iska socota ilaa caabuqa coronavirus dhamaaday arrinkan laakiin waxa kor u sii qaaday haddana 53 xildhibaan oo aqalka hoosa ee ku jiraan groupka yiraahdo progressive politicians hogaaminayso gabadheena Ilhaan Umar iyo mataqaana ya saaxiibadeed ayaa waxay introduce gareeyeen laba bil ay qoreen bil ay ku sheegeen in loo baahan yahay qof walba oo Mareykan bil walba joogta in la siiyo mushaar lacag free ah ilaa caabuqa coronavirus oo ka dhamaanayo waxay sheegeen lacagta inay tahay qofkii oo weyn $1,200 la siiyo bil walba cunugana la siiyo $600 taasina waxay noqonaysaa mataqaana waxay dhaheen in ilaa caabuqa coronavirus laga baxayo u baahan yihiin dadka maadaama dhaqaale xumo hayso dadka guryaha kaliis iska bixin karin cunto ay garan karin 14 milyan oo qofna inay shaqaale la'aan tahay shirkadaheena aysan dadkii hayr garanaynin caabuqa coronavirusna inuu dib loo kac suubiyay uu soo laabtay sida Oxford Delta variant oo gobolo badan ay rabaan inay mataqaana xiraan gobolooda shaqaalooyin badanna ay loo afgarayaan sidaas darteed waxay sheegeen in fourth stimulus check loo baahan yahay fikradan waxaa wato oo kale dimuqraadi laakiin republicaanku ay ka aamusan yihiin mana ahan kuwa ku faraxsan fikradan waxayna sheegeen in fikrad waalan tahay in la siiyo dadka bil walba joogta lacag $2,000 ama $1,800 ee macquul gal ah haysan ahayn laakiin waa fikrad masraxa taalo ma laga yaabaa in la siiyo qofkii $2,000 mise ma laga yaabo waa wali arrin furan biilkan hooska aqalka sare oo aqalka hoos u yaala dimuqraadi kaliya oo soo ogtihiina barnaamij walba oo aqalka hoose ama aqalka sare la keenayo cod ayaa loo taagaa codka loo taagana haddii aqalka hoose ay haystaan dimuqraadi aqalka sare waa 50 waxaa loo baahan yahay biilka soo ku maro 60 cod way adkaan doontaa marka fikradan ilaa oo republican ay soo galaan qaataan mooye laakiin election way sanadka dambe siyaasiyiin badan oo aqalka hoose ayaa doorasho aadayo waxaa laga yaabaa in republican dimuqraadi ay dadku u ogolaadaan inay siiyaan qofkii $2,000 meeshu maray barnaamijkan waa idin la socodsiin doonaa laakiin waa macquul $2,000 bil walba in qof walba Mareykan la siiyo qodobka labaad ay idin wado waa infrastructure bill-kii ahaa $1 trillion oo Biden uu watay baa lacagtan ay $550 bilyan waxay ka mid tahay inuu dib loogu dhiso doono jidadka buundooyinka isbitaalada telefoonada utilitieska internetka infrastructure-kiisa in lagu dhisi doono si mataqaana marka dib loo cusboonaysiiyo ogtihiin waxaa aad iyo aad u duqoobay jidadka iyo buundooyinka dhammaan Mareykan oo idil
سازالة البيل كان وافعية ديمقراطية ريبابليكان كا وإسكوا فقين وإسكوا أفكرتين إن بيل كان لا يريو أول هو 3.2 تريليون دولار لكن سي ريبابليكان كان لو غدا دعيو سيدي تمر ريبابليكان أيا أغلاتي كنا بيرتعدكي كونتن كي ديمقراطية أها ولا يريه هل تريليون دولار على كده خميس تبريئة إلا متقنا ويجان ويكديان هي لقى دوري دونا ansixin doonaan markii ansixiyaan waxay u gudbin doonaan aqalka hoose sidaas ayuuna ku dhaqan gal doonaa madaxweyne Biden hal hada oo ku saxiixi doona qodobka ugu dambeeya maanta idin hayo waa paycheck protection program small business ki barnaamijkii ahaa barnaamijkan oo dad badan oo naga mid ah lacag qaateen kumanaan kun oo dollar qaateen barnaamijkan oo ahaa deyn loan forgiveness deyn cafisa SPA ayaa ku dhawaaqday inay furayaan portal account website kooda spa.gov loona baahan yahay in lendaradii aan ka qaadanay borrowska ee ka qaateen inay aqbalaan portal account SPA 900 oo lender oo yaryar oo financial ku badan ayaa aqbashay oo tiri dadkeena ha ka buuxsadaan spa.gov maadaama uu fudud yahay SPA website-keeda cafiskadana uu dhaqsan noqon doono laakiin waxaa diiday big financial tech companies sida Chase Bank of America oo dhahan anaga SPA website-ka dadkeena client-ga uma dirano wixii cafis rabo portal account-geena ka buuxin doonaan SPA u gudbin doonaan hasi cafisku lagu xareyn doonaa hadaba barnaamijku waa furmay fadlan hadii aad mataqaana qaaratay lacag small business paycheck protection program 1 iyo 2 ka faa'iideysa cafiskan lenderkaaga email ku soo diray ma kula soo xariiray ma aqbalay spa.gov inaad ka xareysid portal account-giisa hadaba ogow midaas hadii email lagu soo diro isku hubi lenderkaaga wax la xariir inuu ka qayb qaadanayo barnaamijka laakiin waxa wala bangiyaasha waaweyn inay diideen laakiin la xariir bal inay ogolaanayaan inay spa.gov ka xariir hadii ku diidaan waxa xaq u leedahay in mataqaana Chase oo kale iyo Bank of America kale ka qaaratay in ay ka xareysatid cafiskeeda 800 bilyan oo dollar ayay lacagtan paycheck protection program kan oo last year dhacay bishii afraad 2020 tuuna wuxuu dhacay oo ka eka May 2020 gan so 800 bilyan oo dollar waay dadkii hor buuxiyay cafiskii hore oo last year kii qaatay boqolkiiba 80 waa la cafiyay 5 milyan oo qof ayaa buuxisay boqolkiiba 80 waana kamid ahay lacagtii hor last year aan qaatay waa la cafiyay dad ayaa waxaa jira marka this year isku qaatay PP1 iyo PP2 dadkaas ayaga ah hadda ay labadaba isku buuxinayaan ayagoo laakiin la xiriir hubsanaya lenderkooda inuu ogol yahay spa.gov inuu ka xiriiriso barnaamijkii waxaan ku soo gunaanadayaa COVID-19 cudurkii uu soo faafay uu soo batay wuxuuna ku faafayaa caalamka idil 614 qof ayaa Mareykan u dhimatay caalamkan waxa uu geeriyooday cudurkan daraadiis 4.2 milyan oo qof 4 milyan 200 kun qof oo dhimatay cudurkan oo loo bangac baa hadartan oo isbedel delta variant ay dhahan ayaa faafayo gobol badan waxay ka fakarayaan in dhaqaalaha ka dhigaan dhammaan joojiyaan mataqaana oo mask mandatory ay ka dhigaan Allah naga badbaadiyo cudurkan hadii ugu dambeyntii aad u baahan tahay paycheck protection program loan forgiveness ka cid ku buuxiso aniga ma waxaan xafiis ku leeyahay Banaadir Mall xafiis number 531 oo ay ka caawinaya sida loo buuxiyo cafiska oo aniga ayo si fiican idin soo dhaweyn doono waxaan rajaynayaa inaan sarki doono waxa dad kale bas ku nooshahay hadii se kale la soo barnaamijyada dambe waaniga maxamed faaraxa oo idin kaga tagayo amaana Allah